جلس هنا نبت جلس ujeedadeedu waxa weeye siba degmada Gacalibaax ujeedadu waxa weeye Telesom oo xaydaabka ay lahayd soo dhaaftay oo soo gashay xaydaabkii shaqada dhismaha markay soo dhameysay waxyaalaheedii kala dhan ee uu ka mid yahay sariflayaasha tagaasiilayda wax miidiyaha meel walba markay gacanta gelisay kale waxay u soo dhigatay shaqaalihii dhismaha marka hataan lahay shaqaalaha dhismaha gobolka Maroodijeex aan loo hadlay magaca degmada Gacalibaax waxa uu leenahay cidii qusaysaha naga qabato Telesom anigoo magacaygu yahay Maxamed Caydiid Cilmi kana socda gobolka Maroodijeex gaar ahaan degmada Maxamuud Haybe waxaanu maanta baaq dheer aan u diraynaa shirkadda Telesom maalmo wadno mudaharaadna ma wadno waan joojinay laakiin cabashaan wadnaa Telesom waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad bal leenahay shaqadayda faraha ka qaad haday ka qaadi weydo annaga inoo taala bulsho fara badan baan nahay oo bulshada Soomaaliland kala bar baan nahay waxaanu yeelnaa annaga inoo taala laakiin marka digni marsinina Abdi Ismaaciil Maxamuud oo ka soo jeeda bahda ku hadlaya afka bahda shaqaalaha dhismaha ee gobolka Maroodijeex gaar ahaan degmada Axmed Dhagax waxaan ka hadlayaa oo iirstul taagaya qadiyada ragayga horeeyay oo ka hadlay Telesom jigwalka koobaad ee kaliya aanu haysanay wuxuu ahaa dhagtayada oo faragelin lagu soo sameyn karin imakana si personal ataaga ay Telesom u sameysay ina ay soo ataagto oo ay shakhsi si dul taagto shaqaalaha Soomaaliland mid walbana shaqadiisii ay duulaan iyo tirtir ku soo qaado istiqaalad degdeg waxaanu ka dhiibaynaa madaxweyne iyo xukuumadda iyo cidii kasta ay qusaysaaba waxaan baaq dheer iyo baaq gaaban buu ugu sheegaynaa ina ay wax ka qabtaan arinta noocaas talaabo degdeg laga qaado jigwal go'aan laga soo saaro lagana hadlo oo laga aamusin waliba isneer bedel cawaale Cabdilaahi ka soo jeeda degmada Axmed Dhagax waxa aan ku sida raga hore hadlay ay sheegeen aan aniguna ku daraya wax badan oo aan idhaama harin hadalkii waa la yiri nuxurkiisina uu dhamaaday waxaan ku cabanaa shirkadda Telesom leeyahay inay shaqadayadii soo faragelisay waxaan Telesom leenahay warbuurihii Soomaaliland baa wax dhagaxiisii ka faa'iideystay leeyahay Ethiopia loo keenay rintiga guriga la mariyo in shirkadda Telesom customer-radeedii baanu nahay prepaid-kii ama mitikaarkeedii simikaarkeedii baan haystaa internetkeedii baan haystaa aqoon maal baan ka eega wax walba waan ka eega xayisiis baan ka eega anagoo customer-kayga aniga xaafadayda iyo family-gayga iyo bulshada reer Soomaaliland oo dhan aan ahay customer in haddana maanta malqacad iyo dubihii igu soo doonato ay igu qabsato xaq maaha aan u dirnay ka soo qayb galay aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa aniga oo magacaygu yahay Injineer Faad Mawlid Yuusuf oo ka socda 26 Juun degmada 26 Juun oo ku hadlaya shaqaalaha shaqaale weynaha Jumhuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa waxaanu ka cabarinaa waa shirkadda Telesom la yiraahdo weey haddaan muwaadiniinta dalka nahay annagoo isugu jirna shaqaalihii dhiska oo nooc walba leh iyo mujaahidiinta dalkan u soo halgamay inankii yaraanu shalay u soo tabcaneenu dhiigayga u gubinay markuu maanta lagu sheegay ragii dalka u soo dagaalamay ku soo kariyay malqaacada waa jaahil adar wax loo dul qaadan karaya maaha ajaanibkeena laga hormarinayo taasina waxaanu aqbalina maaha madaxweynaha waxaanu baaq dheer ugu dirinaa madaxweyne waadigii barnaamijkaaga ay kuugu jirtay dadka shaqo abuur baanu samaynayaa shaqo abuur waxa weeyaan wixii dalka joogay maanta shaqo ma hayaan shaqo burburin baa la wadaa ajaanibkii baa laga hormarinayaa waxa weeyaan maanta haddii uu nin shaqaalihii meel alla meel aan u dacwoonay iyo meel aan washkatoonay iyo cid wax noo qabanaysa toona ma jirto wasaaradii aad noo magacawdayna wasaarad fadhiiday noqotay marka waxaan leenahay wasaaradana mas'uuliyiinteeda la xisaabtan shaqaalaha raydkana uu dulman yahay ilaahay mooyaane cid alla cid aanu maanta dacwadeeda wax nooga qabanaysaa ma jirto haddii sharcigu shaqayn waayo gacantayada ayaanu kaga celinaynaa shaqaalaha ajaanibka ah saasaana noo ballana assalaamu calaykum